waxaan rabaa in Ismaaciil Diyeeshe su-aal aan ka weydiiyo maadaama uu ku nool yahay magaaladan London oo wadankan Ingiriiska inta badan uu sameeyo dhaqdhaqaaq in uu la xiriiro laacibiinta da'da yar ee Soomaaliya. Su-aashaani dhowr mar ayaan weydiiyey laakiin ilaa haatan jawaabteeda waa la laayahay. maxaa keenay in dhalinyarada Soomaalida oo laacibiinta ku ah qaaradan Yurub in ay wadanka aysan u safin karin? xiriirka kubadda cagta hadda ka hor wareysaan ay arintan kala yeelanay laakiin waxaad moodaa wax dhaqaaqaya ilaa haatan ma jiraan. waxaad moodaa in xiriirka ama ragga representative-ka ee wadankana loo soo u jooga rag badan baa waxaan la kulmay iyagoo leh waxaan nahay madaxa sare ee isboortiga arrimaha dibadda waxaan dhilahay wadankan Ingiriiska oo kale aan haatan ku noolnahay laakiinse aanan u jeedin wax ay qabtaan. yes waraysi ahaan waa laga yaabaa laakiinse muuqaal ahaan ama aragti ahaan looma jeedo. Ismaaciil asagana waxa uu ka mid yahay ragga aan filayo in uu xiriir dhow u xiriir kubadda cagta ula leeyahay laakiin sax uma jeedo. su-aashaas rabaa inaan wax aan ka weydiiyo Ismaaciil. horta Salim su-aashan meelo badan horta waa aga jawaabay oo dhinaca warbaahinta ah waana igu soo naqatay in macnaha aan ka jawaabo. horta in aan ogaana horta wax muhiim ah haday waxa ka dhawaajisay ciyaartooydan oo macnaha ajaanibka oo dalka hadda joogo kale iyo jaaniska ciyaaryahanada oo hadaysan helin in national teamka cariira u galaayo. isa su-aashaas hadda waxay taagan tahay dhinacan oo macnaha qurbaha dhalinyaradana hadda qurbaha joogto waa horta muhiim waay in macnaha aan ka faa'iideysano awoodooda iyo macnaha aqoontooda iyo waxyaalaha ciyaaraha caalamiga internationalka in ciyaaryahanada aan ka faa'iideysano horta waa muhiim. laakiin waxaa laga maarmaan ahayn oo markastoo hataa aan madoomiyaha kala hadlo in dhalinyarada dalka joogto kooxaha u dheelo ayagana in horta kuwa dalka joogo la dhiso waa muhiim. macnaha keliya kuma ka karno 5 ciyaaryahano ama 4 ciyaaryahano oo macnaha qurbaha joogto 3 kamid aan rabin inay wadanka aadaan ma naqanayso in horumar lagu gaaro. laakiin Ismaaciil haddii aan hadalkaaga dhex galo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta waraysiga ugu dambe aan ka qaadnay waxa uu yiri hadday nala soo xiriiraan laakiin waxaad moodaa xiriirku inuu aad u adag yahay. la xiriirka ururka kubadda cagta ama xiriirka kubadda cagta Soomaaliya aad buu adag yahay. sax idinka oo ah ragga xiriirka dhow leh maamulka sare ee isboortiga Soomaaliya waxaad moodeen arintaas inaad ka jeeftaan. sidee ku suurtagelaysaa marka inuu qofka TV intuu soo fadhiisto uu yiraahdo anaga laacibiinta qaaradda Yurub jooga ayaan waxaan rabnaa in aan geeno Soomaaliya? hadal ahaan qofku uu dhihi karaa laakiin ficilkiisa ma maqno. Salim horta in la yiraahdo waxaan haynaa ciyaaryahano ama waxaan rabnaa ciyaaryahano inaan geeno waa macnaha waa sahal in laga sheego warbaahinta. xiriirka wuxuu leeyahay website wuxuu leeyahay emailo oo warbixin qofka ku diri karo oo emailkaasna ay gudoomiyaha saacad walba oo furo oo la socdo ka warhayo. sa ogtahay hadda dhowna ciyaaro oo macnaha soo hadda gudoomiyaha hore oo u sheegay waxaa jira ciyaaro oo soo socdo oo saaxiibtinimo ah dalalka oo dariska nala ah inta la gaarin koobka bariga bartamaha Afrika. ciyaaryahan badan gudoomiyaha uu og yahay oo waa ku xiray way isla xiriireen. إن شاء الله هذا حتى عيارها دم تصعده سؤال صار وأنا تبي ويديسو مفتن